allah u wada naxariistee waxaa maanta magaalada Cape Town ee waddankani Koonfur Afrika aaswadareed loogu sameeyey 3 muwaadiniin Soomaaliyeed oo mid ka mid ah khamiistii lagu dilay tuulada Khaliija ee duleedka magaalada Cape Town. 3 muwaadiniinta Soomaaliyeed ah ayaa maanta lagu aasay qabuuraha muslimiinta Mowbray waxaana aaskooda ka qayb galay boqolaal jaaliyada Soomaaliyeed kuwaasi oo ka kala yimid degmooyinka hoostaga magaalada Cape Town. 3 marxuum oo 2 ka mid ah ay ku kala geeriyoodeen isbitaalka Kalbrema iyo hoteelka Bournemouth ee ku yaala xaafadda Soomaalidu ka degan tahay magaalada Cape Town ee Belfel ayaa lagu kala magacaabi jiray Abuukar Ibraahim Sabriye iyo Cabdullaahi Nuur kuwaasi oo u geeriyooday xanuun hayay balse Nuur Maxamed Mahdi Farole ayaa isagu khamiistii kooxaha hubaysan ku dileen tuulada Khaliija ee duleedka magaalada Cape Town wuxuuna noqday kii shanaad oo 2 toddobaad gudahooda lagu dilo xaafadaha isku raranka ah ee magaalada Cape Town. wadantooda garta allah inaga dhigo geeridu iyada waana ku filan baadri walaalaheen waa dhinteen wixii ay hormarsadeenna way la kulmeen innaga ayay maanta inoo taallaahay kuwii kuwaantooda allah inaga dhigo walaalayaal waxa weeyaan waad ogtihiin culimmadu waa dardaarmeen dardaaramadaasi waa muhiim aad bay muhiim u yihiin waa inaynu dadaallo danteenna ka fikirro geerida iyo maalinka aynu u guurayno ee aynu ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala hor istaagayno maalinkaasi diyaargarow buu inaga rabaa yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin qof kastoo inaga mida ilaahay buu hor istaagi doonaa subxaanahu wa tacaala waa xaqiiqo weeyaan dabadeedna turjumaan ma jiro meesha iyada ah qaraabo iyo sokeeyana ma jiro afceliya ma jiro waxa ku anfacaya waxa weeyaan yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim qalbi nabad gashan oo xiqdi iyo xasad shirki iyo muxuu ahayey shaki iyo qudhan oo dhan ka nabad gashan baa loo baahan yahay diin saxaa loo baahan yahay tawxiid toosan baa loo baahan yahay alla ka cabsi baa loo baahan yahay silaturixim baa loo baahan yahay baarinimaa loo baahan yahay wanaag oo dhan baa laynaga rabaa inaynu la nimaadno waxaa laynaga rabaa inaynu khayrka ka shaqayno oo aynu ahlu khayrka garab u noqonno ahlu sharkana aynu iska ilaalinno oo aynu isla kaashanno kulligeen sidii sharka aynu uga hortegi lahayn farifool ma maydhay Soomaalidu taada qof keligii wax qaban karaa ma jiro almar'u biikhwaanihi kamaa tuqbadu alkafu bilmicsami walaa khayra fi lkafi maqduucatan walaa khayra fi saacidi alabkami bakoorad aan gacan lagu qabta lahayn bakoorad ma noqonayso gacan aan bakoor haysaninna waxba ma qaban karto iskaashi bay noloshu u baahan tahay xoogna waxa weeye ka walaalkaa ku jira ee waxaa loo baahan yahay inaynu diinta iyo dadnimada iyo wanaagga isu kaashanno sharkana aynu ka hortagno midaasaa loo baahan yahay walaalayaal shalay jimcii waxaan ka sheegnay oo waxyaabahan ka hadallay ka mid ahaa dhibaatooyinka aynu innagu isku hayno inay yihiin waxa maxaa la yidhahdaa waxaan keenaya oo ay dadku kulli ka wada markhaati kacayaan walaa ilaahay u noqonno aan toobadkeenno waxaa kaloo aan sheegnay dhibaatooyinka dadka aan la deganin aan ku hayno waxaa ka mid aan dhahnay dawooyinkii muxuu ahayey ee kiliinyada yaallay in intii la soo gato la leeyahay waa la diraya maanta waxaa wargeysyada u noqon kartaan bayjajkan soo dhigaynaa ee lagu soo qoray in shil ka dhacay Limpopo lagu arkay dawo la transport garaynayo oo dalka laga leeyahay oo la dhacay oo dawladda laga dhacay arrintaas iyadiina ay keentay baadhitaan in la samaynayo oo khatar ay dawladdu dareensan tahay dawadii loogu talagalay shacabka in wadamada dariska loo daldalayo waxaad ogaataa ragga safrayow boorsadaada dawo xaaraan ah ku qaadin haddii kale waxaa laga yaabaa sharcigaaga iyo muxuu noloshaada oo dhan ba inaad ku weydo yaan laguu dhiibin ammaanad dawo dad laga soo dhacay ha qaadin xaaraan weeyaan waxyaabaha fasaadka ah ha la iska ilaaliyo ilaahay wuxuu leeyahay walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa intuu ilaahay dhulkan islaaxiyey idinku ha fasaadinina arrintaasaynu u baahnay inaan isu kaashanno tawfiiqda allah ina waafajiyo walaalaheen allah u naxariisto qabrigan allah u waasiciyo innagana geerida allah inoo kala dheereeyo ilaahay idankii kuwaana qaatana allah inaga dhigo jazaakum allahu khayran السلام يا سلام الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورا
hadda aan qabtooda taaganahay baan hadda soo dhameynay maanta waxay nooga baahan yihiin wixii kaloo isku dardaarmayno annaga dib iska oran doona maanta insha allah waxay nooga baahan yihiin dhammaan kasoo qaybgashay waxaan markaati ka nahay halkan inay dadkaas waxay yihiin inta janaasada kasoo qaybgashay ayaan markaati ka ah annaguna waa duceynaynaa insha allah oo soomaali oo dhan oo muslimiin oo dhan waxaan leenahay jannada firdowsa allah ka warabso dadkaas ilaahay mataqaanaa geladii ay ka baxeen samir iyo imaan saadiqa allah siiyo annagana gadaashooda allah ilaahay nama fiiceeyo والصلاة والسلام على رسول الله محمد إلى سبحانه وتعالى على رسول الله آمين كان هذا الجزء الله كورابي كورابي كتير سبب الإيمان الآن جاري سبب الإيمان الله السيو فكير المولى كل يوم ناسا نسكسي ولا داير ولا سكيلو وكير يسمع هذا كرمشي لقوله وحنا كريماس سبحانه وتعالى أنا قسم السيو أنا بقيريو وأنتو يمكن وحوالي كل كاسوالي تنسون كنا والله Samen akan salat dari jemaah samen kuciyati samen dulu oleh berkuci ziarah awal itu jemaah dari sampul samen dia jemaah asal sampai ke Dubai dari Pakistan awal dalam dia dari salat berjalan lalu berjalan Pakistan masuk ke dalam Hawaii عبارة عن الله سبحانه وتعالى وإلهي سبحانه وتعالى وحرناده حرقيس لو رقب صدو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كاسا دمان فريا دمان واليد وانا ما ستين السلام عليكم ورحمة الله ولا لها نقبل حي الله ونحرسه قبل الله واسقيه وضياشا ونكو عاكو تعسيه وبس هذه قافوا أنا وحا أمارك يا ليسو كان إن أمارك يا إذا الله ونحرسه على أن الله ونحرسه على جنة الله كدقو وحنو قاعدنا على وقاس كاشيء قدرنا وقدرنا قدرنا أيضا على جنة الله كدقو قرابة صبر إيمان الله كسيه إلهي ما تقبل الله واسقيه إلهي وحا دوي آخر تاما وقبر إن أدك كلون نور بنت صورة عندنا على أجر الله كسيه